Soomaaliya markasta ay xukuumadii fashilanto oo loo baado in mooshin laga keeno si xilka ay u banayso ama xukuumad cusub oo la soo dhiso la doonayo in baarlamaanka Soomaaliya kalsooni looga raadiyo waxa caado ahaan jirtay in lacag ama kursi lagu meel mariyo oo lagu ansixiyo xukuumaddaasi cusub si ay u noqoto xukuumad jirta. haddaba xog ururin ay samaysay telefishinka Universal ayay ku eegaysaa xukuumadda cusub wadadaasi ma mari doontaa mase waa ka badbaadi doontaa. warbixintaasna waxay u dhacday sidan. Soomaaliya kama jirin xisbiyo siyaasadeed oo ahdaaf iyo barnaamijyo siyaasadeed oo qeexan watay oo mucaahadooyin iyo ballanqaadyo la yimid oo shacbiga ka dhex iibsaday siyaasadooda kadibna taageero iyo hiil u helay sidaasna talada dalka kula wareegay. habkan waa habka doorashooyinka caalamiga ah. xog ururintu waxay eegaysaa habka xulashada siyaasadda Soomaaliya waana hanaan ka dhex samaysmay maamul goboleedyada federaalka ah oo dawladda dhexe aan awood u ogolayn, qabiilo sadqaybsi siyaasadeed leh, shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo aan xisbiyo wadan oo u tartamay hogaaminta dalka, shacbi aan xaqii dawladnimada uu ku lahaa aan garanaynin. waxaa dhacay isbedel bedelay kooxo siyaasiyiin ah oo aragti iyo siyaasad ku midoobay oo talada dalka majaraha u qabtay 2012-2016 muddo 4 sano ah. waxaasi yimid siyaasiyiin ka soo dhexbaxay shacbi isbedel doona oo la diriray jabiyana kooxo siyaasadeed oo samaystay xayndaab siyaasadeed oo lama dhaafaana. isbedelna wuxuu macno sameeyaa marka la yaqaan wixii la doonayay in la bedelo. dad badan waxa ay qabaan isbedelka Soomaaliya ka dhacay waa kacdoon fikri ah oo saameeyay hoggaanka siyaasadda maamulka dalka iyo shacbiga Soomaaliyeed. in wax la bedelo haddii awoodda shacbiga la helo waa fududahay, laakiin isbedelka dabadii ma la heli karaa qorshe qaran oo lagu halbeegsado toosinta iyo turxaan bixinta talada guud ee qaranka. waana sababaha ugu waaweyn ee fashilka ku keena madaxda Soomaalida laga soo bilaabo rididii dawladdii uu hogaaminayay Ilaahay ha u naxariistay Generaal Maxamed Siyaad Barre. wixii ka dambeeyay dawladihii iska dambeeyay waxay baadi doonayeen dawlad Soomaaliyeed oo hanata sharciga iyo kala dambeynta soo celisa awoodda dawladda dhexe, sharaftii qaranka iyo kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed. 2017 waxaa la soo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu noqdo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, waana madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya. wuxuu helay taageerada shacbiga ee ugu badnayd muddo 25 sano ah. wuxuu soo magacaabay bil ka hor ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. inkastoo uu ahaa Khayre siyaasi, haddana masraxa siyaasadda kuma lahayn kursi iyo waqti soo jireena oo ammaan iyo dhaliil loo jeediyo. wuxuu ahaa nin aqoon-yahana oo inta badan ka shaqeeyay arrimaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliya. markii madaxweyne Farmaajo soo magacaabay, Soomaalida badankeeda xilligaas ayay dhagahooda maqleen, wuxuuna ka mid noqday dadka farakutiriska ah ee siyaasadda ka soo muuqday iyagoo aan raad hore ku lahayn. qiimaynta madaxweynihii la soo doortay oo shacbiga Soomaaliyeed ay kalsooni badan siiyeen iyo taariikhda ra'iisul wasaaraha oo aan mugdi lahayn ayaa sababtay in si aqlabiyada baarlamaanka Soomaaliya ay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. wadatashi dheer kadib ayuu soo dhisay maalintii Talaadadii xukuumad ka kooban 26 wasiir oo isugu jira xubno ka tirsanaan jiray xukuumaddii hore oo qiimo iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo xubno cusub oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh habka maamulka iyo maareynta dawliga ah. sida dastuurku qabo, xukuumadda cusub waa in kalsooni looga raadiyaa baarlamaanka si ay u howlgasho. waxaana xog ururintu ay sheegaysaa in habkii dawladihii la soo dhisi jiray ee qaybsiga awoodda ku dhisnaa 4.5 iyo wadatashiyada madaxda dalka iyo maamul goboleedyada in la soo maray si loo howlgeliyo xukuumad loo dhan yahay. laakiin warbixintu waxa ay farta ku fiiqaysaa inay jiraan olole raad la leh habkii qadiimiga ahaa ee Soomaaliya burburiyay laguna soo baabi'ay xukuumadii hore, kaas oo ku salaysan nin jeclaysi iyo aniga mudan. waana damaca siyaasiyiinta qaarkood oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay la soo taagan yihiin. waana ayaan daro in xukuumadda cusub oo waxba qaban la yiraahdo hal rido iyadoo maanta la og yahay Soomaaliya marxaladda ay ku sugan tahay. xog ururintu waxa ay si hoose u eegaysaa ishaysiga dhex yaala madaxda maamul
maamul goboleedyada qaar iyo mas-uuliyiinta hay-adaha sharci dejinta sida mas-uuliyiinta baarlamaanka oo la ildabaya dhismaha xukuumadda cusub markii ay talooyin gaar ah oo ay jeediyeen ay ka soo muuqan waayeen xukuumadda cusub. xog ururintu waxay isweydiinaysaa baarlamaanka Soomaaliya ma u jeeda miya 6 milyan oo Soomaali ah oo gaajo la ildaran ee u baahan gargaar degdega. baarlamaanku ma arkaya miya mas'uuliyadda ka saaran amniga si xumaanaya ee maalin walba ay qaraxyada ku dhimanayaan tiro kamid ah shacbiga Soomaaliyeed oo dawladdii wax qaban lahayd ama lagula xisaabtami lahaa ay laalan tahay. baarlamaanku ma arkayaan miya duruufaha ku xeeran soo celinta shacbiga amaba soo celinta sharciga iyo kala dambeynta iyo baahinta maamulka dawliga ah ee shacbiga baahida weyn u qabo. baarlamaanku ma qaban kara miya xildhibaanada farakutiriska ah ee u taagan dib u dhaca xukuumadda ee luminaya kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed. baarlamaanku ma laha miya shuruuc ama xeer hoosaad xakameeya laaluushka iyo abaabulada ka hor imaanaya danaha qaranka iyo dalka ee ka dhex socda baarlamaanka Soomaaliya. waxaana warbixintu ay sheegaysaa iyadoo xiganaysa qaar kamid ah xildhibaanada in caadooyinkii qaldanaa ee soo jireenka ah ee xukuumadihii cusba lagu meelmarin jiray ee ku dhisnaa dhaqaale iyo kuraas in la siiyo baarlamaanka ay weli haystaan xukuumadda cusub ee la soo dhisay oo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay doonayaan inay weeqiyaan. haddaan la helin xildhibaanna xilkasa oo istaaga rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed si loo suuliyo dhaqanada haraadiga ah ee ku dhisan qabyaaladda eexda sadbursiga iyo laaluushka. xog ururinta aqoon-yahano iyo waxgarad Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin hore oo ay la kulmeen waxay u sheegeen in baarlamaanku ay yihiin wakiiladii shacbiga Soomaaliyeed ee matalayay laakiin shacbiguna uu yahay kuwii la xisaabtami lahaa oo iyaga soo doortay ayna tahay in ay rabitaankooda ku hogaamiyaan. waxay shacbiga Soomaaliyeed aqoon-yahanada iyo indheergaradka iyo siyaasiyiintii horeba ay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan doorka iyo kaalinta ay ku yeelan lahaayeen sidii loo ciribtiri lahaa guud ahaan isbaarooyinka siyaasadda ee dhex yaala Soomaaliya ee la doonayo in dib loogu dhigo rajada Soomaaliya laguna diido xukuumadda cusub ee la soo dhisay.